diiwaangelinta dhimashada. Maxaa loo diiwaangeliyaa dhimashada? Diiwaangelinta dhimashada waxay bixisaa caddayn sharci ah oo muujinaysa geerida qofka, taas oo muhiim u ah dhaxalka, maamulka, hantida iyo xalinta arrimaha qoyska. Sidoo kale waxay dawladda ka caawisaa inay fahamto sababaha dhimashada si loo horumariyo caafimaadka bulshada iyo qorsheynta adeegyada. Diiwaangelinta dhimashada waxaa gacanta ku haya xafiisyada bixiya adeegyada daddigista ee dawladda hoose, waxaana kuu fududaynaya hannaanka dijitaalka ee adeegyada daddigista. Si aad u diiwaangeliso dhimashada, 1. ku wargeli saraakiisha dawladda hoose ama shaqaalaha caafimaadka. 2. sii gudbi aqoonsiga iyo xogta qofka geeriyooday. 3. caddaynta dhakhtarka ee khusaysa sababaha dhimashada. Dhammaystirka diiwaangelinta shahaadada dhimashada adigoo tegaya xafiiska adeegyada daddigista ee degmada kuugu dhow. 5. soo qaada shahaadada dhimashada. yaanay dhicin in qof dhintay aan la diiwaangelin. Si degdega u gudbi macluumaadka la xiriira qofka geeriyooday.